ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa howlgalo dad badan lagu soo qabqabtay waxa ay ka sameeyeen gudaha iyo duleedka degmada Balambal ee gobolka Galgaduud. Guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa fuliyay howlgalkaasi waxaana lagu soo qabtay dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falal lagu duugay baraago iyo sidoo kale guryo lagu dumiyay. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa sheegay in dhammaan ay gacanta ku soo dhigeen dadkii ku eedeysanaa falalkaasi, waxa ayna weli duleedka Balambal ka soconaya howlgal ay wadaan ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya. Sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda ee gaaray halkaasi ayaa dadka ku nool Balambal iyo deegaanada hoostaga waxa ay uga digeen in ay ku lug yeeshaan falalka lidiga ku ah ammaanka, waxayna dadka reer miyiga ah ugu baaqeen in ay nabad ku wada noolaadaan, iyaga oo ku wargeliyay in sharciga la waafajin doono ciddii carqaladayso nabadda. Maalmihii la soo dhaafay Balambal iyo deegaanada hoostaga waxaa ka soo yeeraya cabasho ay muujinayaan dadka ku nool halkaasi, waxayna dadkaasi ka cabanayaan in ay soo cusboonaato colaad kol hore xal laga gaaray kadib markii meelaha qaar laga duugay dhowr baraagood, waxaana ku baxay ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka qaybta 22aad.